السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي soo dhawaada meel walba joogtaanba. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye foox ama frankincense geedka la yiraahdo fooxa Soomaalida loo dhaho. Marka runtii fooxan maasha Allah faa'iido badan buu leeyahay. faa'iidooyinkiisa yacni inagu waa haddaan Soomaali nahay waaba taqaaniin foox inaga dhamaadaba ilaa iyo weligeedba ma aragti maasha Allah waxayna ku tilmaamaa wadankii ma aragtay uduga wadankii fooxa isaga iyo ma aragtay haday noqoto jaawiga yacni baalkan kale ma aragtay wixii carfi oo dhan oo miro laga goosto sida mira oo kale maasha Allah iyo geedkan ma aragtay kan fooxa la yiraahdo marka way badan yihiin maasha Allah geedo badan oo aad iyo aad u muhiimsan ayaa wadankeena ka baxa oo wadankeena sidaas loo yiraahdaa wadanka uduga marka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa geedka la yiraahdo fooxa muxuu yahay mise muxuu taraa fooxu yacni waa geed ma aragtay sidii xanjadii oo kale camal ah oo taas runtii qofna ma barayo oo ma aragtay dadka dhan way yaqaanaan qofan aqoon ma laha Soomaali ah haddaan u gudbo fooxu muxuu taraa fooxa sidaan u ognahay baa yacni waa la shitaa guriga ayaa lagu carafsadaa maasha Allah marka yacni faa'iido intee leg ayuu leeyahay fooxan ma aragtay guriga lagu shidanayo ma waxaan iska shidanaynaa oo guriga iska carafsanaynaa mise waa wax medical yacni oo caafimaadka u fiican mise waa wax oo caraf iska ah oo la iska shito sida unsiga maasha Allah marka yacni unsi weyn shidanaa waa isku dardarsanaa caraf badan iyo udug badan iyo wax walbaba waan isku dardarsanaa marka kanna waa mid Ilaahay ma aragtay geedka ku abuuray oo carfaya hadaad shidatid marka maasha Allah waxay ku kala duwan yihiin unsiga iyo kanba idin galiya yacni unsigu waa ogtiin waa waxay la isku keenay waxa laga yaabaa maasha Allah haddana la isku badinin qofka inuu cabur u keeni karo ma aragtay inkastoo Soomaali haddana unsi kama maarano waxaana dhici kartaa dad guriga kula jooga qaarkood inay ku yihiin allergic oo dhibayaan sida ilmaha yaryar oo kale naqaska inuu ku dhago ma aragtay mar walba ilmahaaga u naxintaad naftaada ka naxisid dadka kale ee kula degan guriga ka nax yacni intaad naftaada u naxisid marka hore ayaga weydii yacni waxaan ma ku dhibaa ilmahaaga weydii odaygaaga weydii walaashaada weydii qof walba guriga kula mid ah oo yacni inuu ma aragtay maasha Allah يعني sidoo kugula nool yahay xaq u leeyahay inuu guriga kugula noolaado weydii way waxa laga yaabaa in adiga ku ixtiraamayaan oo is leeyihiin gabadhan maasha Allah hooyada ama guriga leh ha iska shidato guriga bay carfinaysaa laakiin qofka kale ay dhibaato u soo jiidayso marka taasna waxa weeye waa taxadar aan idin leeyahay taas ka taxadara tan kale waxay tahay fooxi ayaan u soo noqonaynaa fooxan maasha Allah fooxu horta sideedaba inuu yacni qofka u fiicnaan mooyaane runtii wax kiimika ma aha waa geed dabiici ah dhibaatana kuma geysanayo waxaaba dhici karta yacni laga yaabaaba inuu sometimes because dadku bini'aadamku isku wada mid ma qof yacni wax qiiq leh allergy ku dhaca way dhici karta qof neef hayso way dhici karta laakiin saan hore usoo sheegayba weydii dadka maxaa ku dhibaya dadka guriga kula jooga inaad warsatid marka walaalayaal geedkan fooxa ah maasha Allah waxaad samaynaysaa wiigii hal mar laba mar isbar oo ku dadaal inaad aad u shidatid gurigaaga marka muxuu ka saarayaa guriga muxuu faa'iido u leeyahay iyo dadkii naftaada wuxuu faa'iido u leeyahay walaal ama walaashii ama walaalkii guriga wuxuu ka saarayaa bakteeriyada urta ku jirta guriga bakteeriyada ku jirta wuxuu u fiican yahay ma aragtay
يعني runtii markaad shidatid waa aragtay maskaxdu u fiican yahay adiga dhan moodkaaga iyo ma aragtay wuu bedelayaa maasha allah habi baad dareemeysaa ila wax kiimika amaaha ma ogtahay waad ogtahay dadka marka la daweynayo ee mudaawaadka iyo meelaha cilaajkana waa loo shidaa dadka ma garatay oo waxyaalihii xunxun oo dhan baa cararaya guriga ku jiray marka maasha allah marka geedkan waxa la yiraahdo in la isbaro aad iyo aad bay muhiim u tahay guriga loo shito wiigii hal mar laba mar meeshii aad ma aragtay wax kale ka waxaysan lahayd gurigana wuu ku nadiifinayaa beautify buu kaaga dhigayaa urur weyn oo culus ma laha guriga marka la soo galo laakiin fresh baad ma aragtay baad ma aragtay ka dareemeysaa guriga marka hore iska leydhi guriga haddii ay suugo ku jirtay ama cunto ku jirtay markaa ka bacdi dirishadaha markaad neer gurigaaga leydhisatid taasna muhiim weeye inaad guriga iska leydhisid maalin walbaba haddii xilliga ay qabow tahay ku dhibaysana xataa 2 minutes oo kale 5 minutes oo guriga eerkaad ka sii deysid aad bay muhiim tahay ka bacdi markaasna waad shidan kartaa geedkan fooxa shido markaa walaalayaal isagoo xitaa waxaa jira saliida ah oo ma aragtay iyo bahalo yaryar oo lagu shubto baa jirta oo saliida ah oo la shito isagoo saliida baa jira isagoo ma aragtay anigu waxaan jeclahay markuu yani uu caadi miraha oo kale yahay oo cad yahay oo la shito naturalka ah markaa bahalkaasi aad iyo aad buu u fiican yahay isla ogaada isbara caafimaadkiina ayuu u fiican yahay oo meeshii intaad ma aragtay wax sanbabkaagu u qiiq kala qaadan lahaa ama qiiq uunsi tiro badan qaadan lahaa waxaa fiican inay wax adiga ku anfacayo aad ma aragtay aad shidatid baa kuu fiican marka walaalayaal maanta intaas ayaan idin hayaa insha allah haddii aad nagu cusub tahay kusoo dhawow channelkeena oo ma aragtay subscribe insha allah dheh si aad u ogaatid fiidiyoyada kale ee aan soo gelino ay kuu soo gaaraan insha allah share iyo like tana insha allah walaalayaal noogu dadaala intiini hore nala joogtana aad baad mahadsantihiin idinkuna dhammaantiin aad baa idin salaamaya walaalahayga soomaalida meel walbaad joogtaanba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu